boqor Cabdullaahi Axmed Cali iyo garaad Saleebaan garaad Maxamuud oo kamid ah garaadada dhaqanka iyo isimada ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa shir jiraayad ay ku qabteen magaalada Garowe ee xarunta dowladda Puntland waxay si kulul uga soo horjeesteen heshiis 17 bishan magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland ku dhexmaray madaxweynaha maamulka Qaatumo Cali Khaliif Galayd iyo mas'uuliyiin ka tirsan Somaliland. garaad Saleebaan garaad Maxamuud ayaa ugu horeen shirkan ka hadlay waxaana uu ka waramay sababaha xilligan uu ku diidan yahay heshiiska Somaliland iyo maamulka Qaatumo ku dhexmaray magaalada Hargeysa. anagu shirka Hargeysa maamulka Hargeysa iyo shaqada ka socota inuu soo saaro go'aamadiisa shirkiisa dambe midna shaqo kuma lihin qaal Mustafa Islaam ka dhaha maqlo muslim ka maqlo gaalada maqasho wax shaqo kuma lihin waxaanu kala nahay dad wadankiisa kala jooga askariga sayn isqabtasiyahayn hadii dhaarshay reeriyo Soomaaliya iyo xidid iyo wax jireena iyaga diido xumeeyay shaqana kuma lihin mana raacayno mana hoos galayno hada qaramadka noo furfuri maayo wax qaybsana kama rabno saamina maqanama doonayno waxay naga maqanaya hadii maamulka dhaqaata ma doonayno. sidoo kale garaad Saleebaan oo kamid ah garaadada dhaqanka miisaanka kule deegaanada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa ka waramay aragtida uu ka aaminsan yahay maamulka Qaatumo ee madaxweyne Cali Khaliif Galayd. Cali Khaliif ee maamulka daru wato anagu dhibaanto weyn hadaan nahay maanu dooran wala wada ogyahay yarkay markay mas'uuliyiinta istaagaan waxaan dir faraha ka qaada waa wada sheeganayay hadda qabanayaan faraha ka qaada ma maamulin saasaan isaga daynay aan dhowr goorna waan ka hadlay way soo wadaan iyo farmada ku dambeeyso baaleen nuuriye haddaan taag gudo ninkaana garaacay intuu ku hadlay haddaan u daayo waxba kama dhina inkastoo xogaa iniqa ku daray waxba kama dhina laakiin waxaan uga jeednaa ragga iyaga hadlaya yaan la oran nin qura hadlayo intooda kale waa diidan yihiin yaan la oran baan uga jeednaa. boqor Cabdullaahi Axmed Cali Dabagooye oo geestiisa shirkan ka hadlay waxa uu sheegay in isimada garaadada dhaqanka iyo nabadoonnada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ay ka midaysan yihiin aragtida ay ku diidan yihiin heshiiska Somaliland iyo Qaatumo. garaad Saleebaan taa ku hadlay waa la qabaa boqor Cabdullaahi Axmed Cali baan hay waa la qabaa garaad taamana meelo yar oo gudaha iyaga aan ku saxayna mooyaane waa la qabnaa isagana inta yada kale ana kulligay isku raacigaas aanu nahay waxa marka ku hadli mayno anagu magac kooxeed iyo magac maamul aan jirin sheegashadiisa ku hadli mayno beelweynta dhulbaahanta magaceeda ee aanu dhaqanka u nahay baan ku hadlaynaa waxaanu isku raacsanahay kuwa tagay ee hadda yiri waxbaanu ku biirayna naguma metelaan arinta oo beesha kuma metelaan kuwa garoocashada wadaana in yari u go'ay mayso ummadweynta iyo deegaanka ay taal iyo shacabkeeda iyo dhaqankeeda yaa taladu ka go'aysa. Umar Soomane, Universal TV, Garowe.